أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. walaalahayga caalamka daafihiisa meel kastood ka joogtiin, haddaad qarankii joogtiin geeska afrika iyo haddaad caalamka intiisa kale aad ku nooshihiinba soo dhawaada. waa walaalkiin axmed jawhar oo aalaaba aad ka barateen baraha bulshada in aan idinla wadaagno wax uu ku jiro khayrkeenna adduun iyo khayrkeenna aakhiro, yacni guusheenna, horumarkeenna, liibaanteenna adduun iyo liibaanteenna aakhiro. aad baan uga mahadinayaa walaalaha dhammaan caalamka meel kasta ay joogaan, talooyinka, afkaarta, wax ku oolka leh, taageerada, dhiirigelinta, ducada intaba noo soo diraya. aad baan idinka mahadinayaa, jazaakum allahu khayran. walaalaha soo xaadiray caawa waxaan idin ogeysiinayaa insha allahu tacaala muxaadaradii sheekh cabdiraxmaan in aan soo gali doono iyadana hadduu ala yidhaahdo. waxaan aada ugu faraxsanahay caawa in uu dhinacayga midig, ilaahay baana i waafajiyay inuu dhinacayga midig iga fadhiyo. maasha allah, walaalkay, walaal aada u qiimo badan, ahlu khayr ah, aan ku tuhmayno wanaag iyo ixsaan iyo fiicni iyo in uu walaalihii dadkiisa, ummaddiisa uu la jecel yahay wanaag iyo fiicni. waxaan caawa u fadhina waxa weeyaan hay-adda caalamiga ah ee ka howlgasha khaasatan dalkeena soomaaliya, gaar ahaan magaalada muqdisho, oo aada garan kartaan magaalada muqdisho tirada dadka ku nool inta ay la-eg yihiin in ay ka badan yihiin magaalooyinka qaarkood aadka u waaweyn ee caalamka laga yaqaano. aniga caawa magaalada birmingham ayaan joogaa. magaalada birmingham milyan qof waxay dhaafsiisan tahay ama ay ka badan tahay dhowr boqol, ma gaadho 2 milyan. magaalada muqdisho way ka badan tahay 2 milyan. waxaad dareemi kartaan magaalada birmingham ee UK ku taalla ee aan deganahay, wax kasta oo infrastructure ah oo ay u baahan yihiin aadanaha degan magaalada birmingham in ay ku helayaan mar alle markay u baahdaan si deg deg ah. gaar ahaan marka laga hadlo aadanuhu waxa uu u baahan yahay baahida deg deg ah markuu leeyahay. waxay la fadhiya oo dhinacayga midig fadhiya walaalkay cabduqaadir, doctor cabduqaadir cabdiraxmaan, oo reer muqdisho xoog ay u yaqaanaan, bal soomaaliya oo dhanna ay yaqaanaan maadaama ay baraha bulshada kala socdaan. wuxuu asaasay hay-adda sida bilaashka ah ee lacag la-aanta ku shaqaysa 24/7, 24 saac maalin kaste oo ilaahay keeno, oo usbuuca ka mida 7 cisho. doctor cabduqaadir waxay asaaseen, ilaahay khayra siiyo, 2006 hay-adda la yidhaahdo aamin ambulance. magacaad ka arkaysaa marka, macnaheedu waa maxay? aamin ambulance. ani waxaan ka fahmay baahi deg deg ayaad qabtaa haddaad dhaawacanto, haddii aad uur leedaho maaragtay xaaskaagu ay umulayso, haddii waalidku uu xanuunsan yahay, hadduu waayeel dhibaata haysato, markiiba lambarkan aad ujeedaan waad aragtaan maan rajaynaya insha allah 999 in lasoo waco oo markiiba meel kastoo aad joogtid ay kuugu imanayaan instantly inta ay ka awoodaan. doctor cabduqaadir, soo dhawo walaalkay. السلام عليكم. aadaan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo caawa. magaalada birmingham aad noogu timaada adoo soo maray london. walaalku wuxuu sii mari doonaa dalalka aan idhaahdo dalka UK, magaalooyinka kale, haddii ay Leicester tahay, haddii ay Bristol tahay, haddii ay Manchester tahay, intay gaadhaan insha allahu tacaala ay gaadhi karaan ayay marayaan si ay idinla wadaagaan aamin ambulance maxay u haysaa bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan, ee 2 milyan 3 milyan ka badan ee ku dhaqan magaalada muqdisho. waxaan rabaa marka ila soo dhaweeya walaalkeen, ducana waa idinka baahannahay, taageerana waa idinka baahannahay, gargaar waa laydinka baahan yahay, laakiin waxaan rabaa horta inaan walaalkeen aan wareysano oon iskiin bara insha allahu tacaala. doctore, soo dhawow magaalada birmingham. waxaa
hostingka noo samaysay oo namarti gelisay hay-ad dhalinyaro ay asaaseen oo aada u qiimo badan oo la yidhaahdo anigu magac kalaan u saaree waxaa la yidhaahdaa quality accountants anigu waxaan u saaray quality assurance marka waxaan fadhinaa caawa xafiiskii quality accountant cabdicasiis iyo cabdiqaadir ilaahay barakeeyo iyo inta la shaqaysa companigoodana allahu barakeeyo doctore shaydii ku dhalatay dabcan doctorku waa dhakhtarka ilkaha waa dentist waxbarashadiisa Pakistan ayuu kusoo qaatay ilaahay xafido sidee doctor idinku dhalatay inaad ambulance u samaysaan umada baahidiisu intay la egto بسم الله الرحمن الرحيم شيخ محمد آد يا كاغا مهد علنيا بارك الله فيك أديك iyo walaalaha khadka ku jira dhamaantiin aad baad u mahadsantihiin waqtigiina qaaliga aad soo horteen aad baad kaga mahad celinaa deetana markaan u guda galo su'aasha la weydiiyay Amin ambulance waxaa la bilaabay oo la sameeyay la aasaasay 2006 waqti baahideedu aad ay u badneed yacni magaaladanka dhan Soomaaliya idil waxaa qofka xanuunsan qofka jiran ka dhintay hooyada uurka leh waxa lagu qaadi jiray gaargacan subxaan baa lagu qaadi jiray marka aniga waxaan fikiray markaan wadankii 2006 wadanka soo laabtay nacam Soomaaliya ku soo laabtay magaalada Muqdisho ku laabtay nacam dagaaladii Sacuudi ee maalin kasta hortii dadku dhaawacmayeen ku dhimanayeen nacam waxaan isweydiiyay qalbigayga dadkan inaad meeshan ka tagtid inaad wax ka tagtid waxa kama dhacayso shay yani ugu soo dhaca qalbigayga waxay markaa inaan sameeyo in dadkan ambulance loo helo sax gargaar degdeg in loo helo gargaarka degdega marka waxaan ku bilaabay baabuur aan soo kariyay sax waliba markii wax dhacaan ha dadkan aruuri ha $50 qabso sax daqiiqada haato 2 daqiiqo haato 1 saac haato $50 muddo markuu waday aan wada baahidayna istaagaynin sax way waxaan safety-gayga dhan waxaan lacag haystay ku geliyay baabuur inaan gado ambulance ah cajiib baabuurkaas wuxuu adiga wixii aad haysatay anaa geliyay intay doontaa ku noqoto lacagtaydii safety-ga ii ahayd aan isla biilka iyo waxa aad ku wardiisatay ha ayaan geliyay ilaahay alxamdulillah hal maalin ma baahi ima qaban sax hal maalin ma qadin aniga carruurteydu dadka ugu nolosha fiican ilaahay idin qadiyo marka baabuurkan gadnay ma sha Allah mini bus oo ahay kuraaseen ka saarnay waxaan ku qornay ambulance inuu yahay Amin ambulance sidii ugu dadali jirnay sax waxaan sameeyay dadkii inaan wacyi geliyo ilaa $1 dhiiba bishii si aan qof uga baadisaan sax way dad badan baa igu daysaday baabuur gaday dad ganacsato ah baabuurtii waan wadnay maanta alxamdulillah waxaan haysanaa 20 ambulance ayaan haysanaa بعد 12 سنه كبعد 12 sano kadib walow aan aaminsan inaan ka badan samayn karay laakiin waxaa yani dadkii ilama fahmin صحوي ilama fahmin صحوي waxaan ka kaambeyn garay jiray jaamacadaha macallin jaamacadeed baan ahay صح dhowr jaamacad wax ka dhigaa ardayda ku dhigaa waxaan marka casharka dhammeeyna aan dhihi jiray $1 bishii dhiiba صح si aad qof u badbaadisaan صحوي marka sidaas ayay ku socotay صحوي shaygu markii jacaylna uu jiro صحيح haddana ay jirto corruption la'aan uu jiro waa la bulaalin karaa إلهي خير قصيو أد بدو مهتمت هاي أنت سوى مقدمه آمن أمبلاس حقيقة صوب العوض وحربا قف كستوحو صورة يسنكرا أما أو قران كرا باهيدا الله قبا مركو المكاحة نوستو أما الشيل جاري أو دعو أما دباتا بأي دعضو لبابا والو باهين هي دق دق إن الله هلو ها أمبلاسنا دق دق بالو باهين إن هلو haddii uu dab dhacana dabdamis oo degdeg ah asagana in la helo ayaa markiiba loo baahan yahay doctore muqdisho bay ka badan tahay yani intaasoo xaafadood bay ka kooban tahay waa la 17 xaafadood oo cajiib 2.5 ilaa 3 milyan dadka ku degan magaalada muqdisho okay su-aasha isweydiinta waxa weeyaan ee cajiibka ah intee in la eg baad baahida intaa la eg 12 sano aad soo xambaarteen yani ama aad xamisheen waxaan isweydiinaya sideed ku xamisheen yani ma jirtaa cid wax idinsiis horta xaqiiqatan markii laga reebo dadka sama jeclaha ee Soomaalida ama ganacsato ha ahaato ama ardayda ha ahaato sax markii laga reebo cid kale to maamulo oo wax siisaa ma jiro yani waxaad ka hadlay qof $5 bixiyo $100 bixiyo $2 ha yani markii waqtigu soo dhaweeyay u tagay laakiin wax rasmi ah oo la oran karo budgetkaas ay leedahay hay-addu ay dadka ugu tala gashay inay ku caawiso not at all ma jirto okay baawur haddii ka hadlaa maxaad sameeyay waxaan la soo tuurnaa
ninka makaanin gooni soo toogayna kow birta loo baahan yahay waa soo deynsanayna mayaan dhowta subxaanallah 2008 waxay ku dhawaatay inay xirantay aad salaamaad idaacada ka aragtay ma waa arag waxaan rabaa in aad uga magacayso hay'adda hormuud kambaniga hormuud oo qarashkii markaana ku lahay naga dhiib khayr allah si marka yacni laakiin ma jirto wax budget dowladeed budget hay-adeed ee meel u yaalla ee lagu caawdo adeegan ma jiro laakiin dadka saaxiibada ah wejigeena u gadnaa intaynan biilka guryaheena aynan dhiibin ayaan aamin ka fikirnaa marka hore anagana ilahay nagu maceebeeyo waxaan warkaaga ka fahmay haddaanan qaldanayn walaalahana waan rajayn lahaa inaad bal fadlan aad sheer dhahdaan oo aad la wadaagtaan asxaabtiina si ay u arkaan dabcan hadda waxaan idin lehi lahaa walaalahana fiirsanaya fadlan waxaad aadaan website-ka ama maxaan ku idhahdaa facebook page-ka aamin ambulance ay leeyihiin xalay anigu ilaa labadii ayaan maraan raadinayay dabcan macluumaadka aan fiirsanayay aan arkayay waxaa ku jira ma malayn kartid yacna shaqada aamin ambulance ay hayso ay qabanayso waxaa loo baahan yahay training oo dadka shaqaalaha in la traingareeyay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin qalab waxay u baahan yihiin dabcan hygiene baa loo baahan yahay oo moral support baa loo baahan yahay marka bal ziyaarta ilaahay khayr idin siiyo doctor halkaaga waxaa ka fahmay dowladuhu iyo dalalku waxay leeyihiin hay-adaha caynkan u shaqeeya budget loogu talagalay sanadkii inay ku shaqeeyaan okay adiga hadda waxaad leedahay waxaan garab rartaan waxaan kasoo xamaashaa oo nolol maalmeedkan kasoo ridaa inaan jaamacadaha togan dhigo nacam ma is leedahay inkastoo su-aashan u baahan tahay inay marka dambe ay timaado mustaqbalka haddii marba 2018kii mar ay ku dhawaatay inay xidhanto intee baahi loo qabaa inay sii jirto xaqiiqatan adeeg ambulance horta wax lagu baahi baday markay dhibaato timaado ha ahaato hooyo uur leh ha ahaato meel qarax iyo dhibaato ka dhaceen badiil ma jiraa haddii la waayo aamin hadday xidhanto caawa maya badiil u tahay hooyada umulaysa yaa qaaday walaa xaaga baabuuri raadsan ka qaraxa ku dhaawacmo cid qaadaysa male weliba annaga waxay noo dheer dadku maray ka soo carareen meesha dhibaatada ka dhacday sax wey annaga waanu orodnaa si aan qof u badbaadin waa saas ayaa noo dheer annaga waxaa suurtagal qarax labaad inuu dhaco waxaa suurtagal dhibaato labaad meesha inay ka dhacdo waxaa shaqaalehena mararka qaar yaa suga idinka laftigiina securitygiina ilaahay allahu akbar ilaahay hal maalin hal mar baa wiil kaga dilay weli wax kaleeto naguma dhicin ilaahu naxariisto ha walaalaha waxaan dareemi kartiin ilaahay khayran siiyo baahida intay la eg tahay runtii baahidana ma aha mid keliya reer muqdisho khusaysa horey waxaan u idhi dhibaato intay adig kaa maqan tahay qeyrkaabay ku maqan tahay saas awgeed ha sugin marka intay adig ku imaanaysa ha sugin ilaahay ka maangal waxaad samaysaa isku day in aad u gargaarto ka maanta dhibaataysan sida adiga berri lagugu gargaaro ilahay baa kuu skira dadka insha allahu tacaala ditore intaanan u iman maxaad u baahan tihiin waxaan isleeyahay 12 sano waa waqti dheer oo aada u fog isbedelo kala duwan baad soo marteen oo hadda nooga sheekaysay min kasoo bilow gaari aad soo kirayso mid oo hal aad soo gadeen maanta alxamdulilah 20 baad maraysa haddaad heli lahaydeen qof kasta oo soomaaliya oo caalamka jooga $1 hadduu idiin soo diri lahaa hay-addu intay la ekaan lahayd $1 way badanta sheekh Ahmed saas miya waxaan oolaa ani 10 cent haye ama 0.5 aan yiraahdaa badiyo 0.5 waa $0 sax waa hadday bixiyaan ummadda Soomaaliyeed iska dhaafay nuskooda dexta bixiyaan waxaan anigu u ballan qaadaya xisaab oo transparency ah gobol iyo degmo iyo tuulo oo ambulance ah iyo in lagu daro helicopter ambulance hay'alay allahu akbar lunsan maayo corrupted garan maayo shaqadeen jacayl u qabaa yani haddaysan labadaas meesha la gelin waxba ma socon karaan horena waan u sheegay marka dadka waxaa laga rabaa 1,000 ma ah 100 ma ah 20,000 ma ah $10 ma ah 20 ma ah 0.5 haddayna siiyaan ummadda Soomaaliyeed labadaas way xataa u ballan qaadinaa in aan transparent noqono oon nuskii $1 Sheekh Ahmed oo bixiyay meesha oo maray aan siino waa kan ambulance aan loo gaday shidaalkaan loogu shubay taayirkaan loo gaday qofkaana mushaar loo siiyay in la yiraahdo ayaan ballan qaadinaa
waxaan kala u ballan qaadinaa in gobol degmo iyo tuulo in ambalaas la geeyo hadda waa Soomaaliya idil ogow sax way ma ahan magaalada Soomaaliya arrintaas waxaad ku samayn kartiin haddaad heshiin 0.5 يعني inaad ka heshiin 0.5 haddaan ka helno ummadda Soomaaliyeed waa wada badan tahay haddii aan dalka gudihiisa joogo xitaa iska daa kuwa banaanka xaggeeda okay dalka gudihiisa joogo waxaan rabaa inaan ku jiri sorry طبعا waan u imaan doonaa بإذن الله الكريم dowladdu ma idin qoosanta dowladda bedel kale ma jiraan aamin ambulance kale oo cali ambulance amba qaran ambulance amba waxay doontaa noqoto magaceedu ambulance kale oo idinka barbar shaqeeya ma jiraan maya ambulance waxaa jirta isbitaalle hal ambulance isbitaalle صحيح isbitaal kale ambulance oo leeyahay taas waxaa iska leh ambulance kaas iyo ninka iska leh unba adeegsan يعني isbitaalka unba laakiin midaan waa mid ummadda dhan ka dhaxayso hadduu qofku 9 soo waco صح 24/7 la soo cararay hadduu soo waco qofka xaggee joogtaa meel hebel dhibkaa waa maxay waxaas baawarku 10 daqiiqo gudahood doob daaho wadada jam tahay wala joogaa waa mid la wada leeyahay ka hadlay laakiin wax oo abaabulan oo nidaamsan oo sidaan oo kale dadku wada leeyahay صح ani ma gumo wax aqoonsiga dowladda ma ka heshay dowladda waxaan sameynay gobolka Banaadir registration ka sameynay okay waxaan registration ka sameynay wasaaradda arrimaha gudaha waxaan registration ka sameynay wasaaradda caafimaadka kulligood waxaan haysanaa documentigooda ما شاء الله madaxdooda u tagnaa shaqada waa nagu amaanan ما شاء الله laakiin loogama helo tasdiiqaadka ay u baahneed iga rumaysay Axmed adeegeeda aad aragtay 12 sano socday inuu maanta meesha uu ku jiro lagu baakin gareenayo inuusan lahayn inaysan aamin lahayn meel عجيب inaan la tuurtuurno garaasho kaleeto inaan guri karaa tagno ay ku suuqaysaa يعني ambulance ma laha garaajyada u gaara oo baabuurkii ka halaaba lagu shaqaale lagu tababaro shift lagu galo call center laga dhigo ma laha mana aan macnaheedu inaan ka seexan madaxweyne ayna la kulmin ma jiro marka laga reebo Cabdiqaasim صح انتي 2006 kii ka dambeysay soo martay oo dhan ها waa laga wargeliyay gobolka Banaadir mayor soo maro in la hadlay ma jirto waa inaan dhihin kala hadlay arrintaas weli ma ayna jawaabteen Cabdiraxmaan hadda ma idin la socda waa u tagay fadhigiisa u tagay waa gas wuxuu yiri waa shaqo fiican baa haysay waa gas aad buu noo amaanay laakiin shaqadan amaan kali ma anfacayso ha ma amaan waxaan rabaa waa sax amaan waa talaabadii ugu horeysay oo qofku haddii uu marba ku amaanay waxaan aaminsanahay marka amaan istusayaa in uu ogol yahay wax qabanayso haddii kale waa ku diidi lahaa dabcan waa talaabadii horeysay talaabada ku xigta tashiilaad in la idiin sameeyey in wax la idiin furay dariiqyada aad maraysiin mararka qaarkood in accesski ay idiin furan tahay taas waxay ku qasban tahay aqoonigii amniga jooga anaga hadii qof xanuunsan meeshan yaala ama dhaawacan haddaan u tagno sax horta in loo daawo lagu qasban yahay haddaan naloo daawo la ka xirno kasoo laabanayna anaga waa turtuugana waa baryana inta tabarteen laakiin haddii noo diido kasoo tagayna sax wey ma noo sheegi kartaa iga raali noqo si walaaluhuna ay noola fahmaan bal 2018kii 2018 14 October 2017 qarixi weynaa ha waxaan dabcan muuqaalo cajiibaan ka arkay idinka oo dabcan shaqeynayo oo shaqadii ku dhex jira waxaan aaminsanahay shaqadii inaad ka badnay aad iyo aad nafsiyan sideed u qaabishay runtii horta waxa meesha horta wax meesha ka dhacay wax kaarisa ahayd wax laga sheekay kara ma aha saxiix waxaa intaa inoo dheer anaga waxaan ahayn dadka ugu horreeyay taga meesha wax ayna ummadda kala arkin uma aragna anaga qof gubanaya dhinaca gubanaya dhinacna baawar uga fadhiyo dhinac hilba go-an guri dumaya qof baawar ku fadhiyo waxaan qalbigaa loo dhamaystiri karin subxaan allah marka inaga waxaan qabanay wixii aan qaban karin ayaan qaban laakiin meeshaas dhibaatada ka dhacday wax la soo koobi kara ma aha afrikana kama dhicin asiana kama dhicin 1 kilomitir dhexdeeda in 500 oo qof ku dhimato wax adduunka hore uga dhaca ma aha subxaan twin towers oo dadku sheegaan laakiin dad tasdiilaad haystay ahay of course waa ambalaasta shaqeynaysa dabska shaqeynaysa ciidamada shaqeynaysa ya laakiin meesha wax u diyaarsanaa ma jirin ilaahay ha idinku amaansado waa idinku amaanaynaa waana idinku dhiirigelinaynaa shaqada inaad sii wadiin su-aalaha dabcan 100 su-aalood baan hayaa runtii laakiin su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan haddaan caawo dhanba su-aal ku weydiiyo diyaar baan su-aalana oo aan la arkin wax qabad waxaanaan kula qabanaynahay hooya dhaqaaqa macno badan ma samaynaysa waxaan rabaa walaalaha inaan la wadaago runtii in ay
isdareensiyaan ama dareemaan culayska ay leedahay ummad markaad u khidmaynayso runtii ee aada wax u qabanayso. iga raali noqda, telefoonku iga yara fog yahay, ma arkayo commentkii aad soo qoraysiin. hadhow baan kolley akhrin doonaa, waan isku dayay inaan idinka soo jawaabo, walaalkan wuu idinka jawaabi doonaa. qofkii su-aal gaara qaba wuu soo weydiin karaa doctor cabdiqaadir insha allahu tacaala. doctor, waxaan rabaa intaanan soo afmeerin barnaamijkeenna, waxaan halkan rabaa inaan uga diro hambalyo iyo boogaadin dhalinyarada ATM ee fariidada ah ee runtii wax weyn kusoo siyaadiyey bulshadeena Soomaaliyeed, oo ah in ay u sameeyeen aqoonsi dadka waxtarka u leh bulshada iyo ummadeena ee wax kusoo siyaadiyay inay siiyaan award, wax la yiraahdo recognition. markii la yidhi recognitionka London ka dhacay baa la idinka siinayaa oo waa la idin codeynaya, maxaa dareenteen? xaqiiqatan horta anaga codka ku kalsooneen, kalsooni weyn baa ku qabnay. waan noloshay waxaa la markii codka la soo dhigay waxaan noqoteen qofkan kugu dhawaay 2,000 cod ka hooseeyo. Allahu akbar. qofkan ugu dhawaaw. Allahu akbar. marka waxay ku tusinaysaa micnaha dadku jacaylka iyo baahida ay u qabaan aamin ambulance iyo wanaag u haya. Allahu akbar. wax weyn khayr Allah insiyo dadkii idin codeeyo dhammaan duceeyo. waan garanayaa ilaahay xagga mugti Allah barakeeyo. صحيح. waxay marka na tusinaysaa in shaqada ayna kala geeyeen dad badan wada hayaan. صحيح. micnaha lama rabo materialist inaan noqono lama rabo, laakiin dadka qalbigooda inuu nala jiro aad baan ugu fadhinaa, waan uga mahadcelinaynaa, kun jeeran uga mahadcelinaynaa. wax badan bay marka in recognition kana la siiyay noo faa'iideysa inaan la hadalno Soomaali diaspora, dadkii Soomaalida qurba joogta dalka dibadiisa jooga. صحيح. aan ogeyn aamin ambulance wax ay tahay. صح. inaan la hadalno noo fududeysa. صح. waxaan hadda noo qorshaysaa inaan Europe countries inaan dhowr waddan kala tagno إن شاء الله. sidaas oo kale ula hadalno. اسكندنافka oo kale meelaha oo dadkeena qiimaha badan ay joogaan, qorsheen ugu jirta Sweden, Norway, Denmark, Finland, intaas oo dhan. inaan tagna qorsheen ugu jirta. Okay, German, Belgium, Holland, intaad gaari kartiin. ATM رناحت إله أب مركو هو ما فريد. صح. ATM صح. أين سجون وسيم هالعلنين. صح. إن أنت وضن كي تجن وقاعدين ضد شقيني إني جيران أي صوب بندقة مسك كان بلاتفورم سين أدبن وبهذا. إما شيء آدم بأي شيء إله خير سيء. إنا تمادين إله بركة. وحان ربع طبعا أقونسي أو حايدين قاضي وزيردي عفمات كهون. نعم وزير حاو محمد حسن. وزير حاو خير الله سيء. وحكي شيء كيس إن أي مركي وزيرد أي أحد. aqoonsi inaad codsateen kabacdina ay tilmaantay inay soo sameynaysay research inay soo baadho meesha iyaa ka jira ugu dambeyntiina ay ogaatay inaan idinku tihiin dadka kaliya u taagan mashruucan ummadda in lagu caawiyo oo maaragtay wada shaqayntii ka war kaligeed ma aha dabcan laga soo bilaabo waqtiga wasiirna waa ka horreyn wasiirna waa ka dambeeyeen laakiin waxaa la yidhaha moogtahay haabasho waa hagar la-aan aad bay caawin oo lahaa haabta inta tabartay khayr Allah sii khayr Allah hada joogan sidoo kale aan ka rajeynaa ayaga lafskooda ma xumo ma aha in laan waxweyn yihiin صح وي laakiin yani inay sidaas kale noola dadaalaan noo garab galaan faraska waxaa la yidhaha usha waxaa loogu dhuftaa hadheereey صح وي ka dheereey صح وي marka xaqiiqadii waa weynala shaqeeyaan way ku mahadsan tahay xaawo iyadana waxay idin siisay markaas aqoonsi ah qorshaha sharaf waxay siisay wasaaradda caafimaadka ka socda صح way leedahay tanan ku awaal marinay anaga dhankeen صح وي su-aasha midii ugu dambeysay midda ka horeysa waxaa maalin dhaweyti BBC da laga wareystay kolley aniga waa saaxiibkay dowladdan uu ku jiraa nin dhalinyaro aan aad u jecelahay weeye dadaalaya runtii cabdinuur dabcan BBC waxay sheegtay inuu soo qoray in uu leeyahay dalalka qaarkood ee dalada kalalaasih iyo dhibaatadu ay ka jirto in loo soo hoos raaco maxaan ku idhahdaa ambulanska oo wixii isqarxisa arrintaas sidee idiin saamaysay midda kale wax jawaabo ma ka bixiseen marka laga reebo waraysiga BBC ka qaaday wax jawaabo oo qoraal oo dawladda aad la tacaamulaysaan ma samaysay sidee idiin saamaysay meeshaan u baahnay halka xaqiiqatan idiin saamaysay anaga runtii aad baan ugu amaanay waan gartay adeegan muddada shaqeynayay shaqada badan looga baahan yahay welina wax hadda ceeba aan lagu haynin صح يعني إن سيد النوع عصر لو قد يقول أنا ما ينرد حدي حتى لو قد يقول وحيد فرصمة خاصة إن لقوا ذيش صح لكن حدي يعني نبى لبعون بس كسر بدل بس مدح كتر هو يدي وريا حاجة كقوا قال سعر قوا هاي ونوض شفتوا صح مرة فرصمة بدن بالجيل لكن مرة بس الله ده صح أنا وحنوقف إن الرجيس الكريه باورتين
meeqa baabuur haystaan intaasoo baabuur hal rajiso gareeyo baabuur kastaba taargadiisa engine numberka wax isbedelaya ma aha weligiis waa oolaana haddii anaga baabuurtan wax laga waaya nala ku ciqaabo ana la kula xisaabtamo laakiin registrationka 5 sano weydiisanaya reer Birmingham kulli way fiirsanayaan dalal kalena kulli waa laga fiirsan doonaa magaalooyinka aad maraysaan xaafadaha masaajida dabcan waan usii sheegaynaa in aad soo mari doontaan hadduu alla dowladda maxaad ku codsanaysaa dowladda wax badan baan ka codsanayna dowladda gacanteeda u baahannahay dowladda waxaan u baahannahay yani adeega madaxweyne farmaajo una maqlaaya madaxweynaha 3 mar baan la kulmay ra'iisul wasaaraha una maqlaaya absolutely طبعا عبد النور عبد النور اد بنور خير الله سي اد بورنت عبد النور صاحب دو ونليه صح اد بنور صاحب نليه صح انا لكن دولته waxaan ka doonaynaa tan hadda joogto ee tan imaan doonto ee ku hitrey inta waxaan leenahay adeegan waa loo baahan yahay ma isleedahay adeegan waa wixii iyaga laga rabay xaqiiqo wey ha soo qarankiisa shakuum jira ayaga mas'uuliyadda صح لكن انا قلت لك دولدين كمن هاي ما دام انا شعب كيد انا هذه قبل شعب كيد دكتور غير لك صحوي شعب كيد كمن marka adeeg anaga waa dawladda saxwi qayb ka qaataan waxa jira anaga in gaari kari saxwi hadana anaga ma taqaana wixii jooga ka dheer iskala la kora waa sax iskala adiga ma la gaarahay ma gaari saxwi anaga waxyaalo badan waxa jooggeena ka qaar badan oo iskaalada garanay jira waxaan ku dhahlaa jaro af Soomaaliga salaan ya steers saxwi waxa soo dhan saxwi waxa jooga ka dheer iskala la kora sax anaga waxa jira waxyaalo badan gaari karin sax dhul ma heli karno adeegan fankiisa ma wada bixin karno in la qaato adeegan wuxuu u baahan yahay tababar u baahan yahay qalab u baahan yahay fan u baahan yahay wuxuu u baahan yahay yani in laga warqabo in maro support loo sameeyo haddii qofka shaqada hay lagu dhiirigelin sax shaqada public qofna ma qaban doono sax way qof ku faani doona shaqa public haya ma jirto wala wada carar mid yar baa kugu darsan khayr la ku siiyo shaqada public waxa kamid ah meelaha madaxweynayaasha Soomaaliya soo maray mid kamid ayaan weydiiyay wuxuu yiri jaamacadaha waxyaabaha ugu lacagta yar leh uguna ma aragtay wax soo saar ka badan waxa kamid uu yiri macallin in la soo saartay faculty-ga marka la tagayo waxa dhici karta macallinimada in la barto in ay ma jiraan jaamacadaha hadda in Soomaaliya ku yahay kulligood faculty of education wala aqlaan qofna ma tago sababt wuxuu ka fikraa macalinku ama ka helaysaa mushaar ugu fiican sax khayr la qsi halka fariin baa ku jirta ah wixii in la qiimeeyo ahayd lama qiimeeyna ha meesha lacagta taala la aada kaliya bis laakiin bulshada yaa ku dhisaya waxaan idin sheegaa in telefishinka maartay ha noolaato barnaamijka laga daawanayo laftigiisa insha Allah taala su'aashi iigu dambeysay badan waqtiga celin ugu soo noqon waxaan rabaa bulshooyinka Soomaaliyeed ee caalamka geeska Afrika iyo caalamka daafiisa inaga fiirsanaysa codsi maxay u diraysa maxay la wadaagaysa midda kale account ma leedahay oo ma jira lagu soo shubo cidii $1 ba adigu tiraahday anu ka badan ma qabsan doonaa ala kulli khayr ku siiday ani horta waxaan oran lahayd dadka Soomaaliyeed shaqadan ayaga iska leh maanta qofka Norway jooga Australia jooga Canada jooga nabad galay walaalkiis walaashiis iyo qof kale oo qaraabadiisa qof kastoo Soomaali waa qaraabadaada Soomaaliya dad badan oo min qoomiyada min saxiix marka qof kale ta loo qidmaanaya waxaan noqday adeegan ka wada qayb qaata waxaan waa sadaqa jaariya qof kastaba shilinka u baxsado saxiix qofka ilaahay kulli wad ilaahay wax deeminay waa sax oo hadan loo laala Allahu akbar ya ilaahay wax deeminay ilaahay deynka aan baan man yuqridu Allah qardan hasana saxwi wa kaza fa yudaa'ifu lahu ad'afan katira loo badiya na'am anaga waxaan rabnaahi ma aan malaayiin dollar kama rabdo kumanaan kama rabdo walaal kama rabdo waxaan anaga ilmahan ku korsan kama rabno sax $1 inay bixiyaan dadku qof dhaawacan qof dhintay qof dhibaataysan hooyo uur leh cunug shumaya mid dhiikar ku dhacay ku sukar ku dhacay waqti kasta jirada xilli adeeg degdeg halkaas midaan ku darsanaa intaan la dhamaysan codka qof dhintay uu dhintay Allahu naxariisto Soomaalida waxay tiraahdaa nin dhintay kabiisa dhaw waa sida dadku yiraahdaan macnaheedu yani waxa laga wadaa dabcan kabihi baa ka haray oo qof kale adeegsanay laakiin isagu aakhiru aadi way oo nafcigiisi waa ku daay soo ma duceyn kara xitaa qofka u baahan in la gargaaro qofkan dhaawacaneed badbaadinaysin way qofkan umulaysa hooyada ah qofkan waa yeelka dhaqaaqi karnay u baahan in la qaado way waa sax igu soco codsiga u dambeeyay marxaarada dadka horta page-keena inay galaan www.aminambulance.com inay galaan qofka raba inuu macluumaad ka ogaado aamin meesha ka helaya saxiix
qofkii raba inuu wax bixiyo meesha donation ku qoranto dhag ku siinaya صح meesha wax keeli doona meelaha lagu diri karo صح aamin ambulance hadda wadanka gudihiisa joogo صح soo mobilkiisa haysto $0 dhag صح 10 senti dhag waa macno weyn sameynaysa صح waana wax almost dadka intooda badan ay bixin karaan ilaahay khayr anaga taasa macno noo sameynaysa جزاك الله خير waxa inta dheer ها dadku inay ogaadaan dadku bini aadamku wuxuu qiimo ku leeyahay nolosha صح qofka marka oo gargaarka u baahan daan la gargaarin dhiig baxu kaaga dhiman خلاص نفنا مسوقني كنت ريبيرنا مسلمين صحيح marka taa waa inaan niyadiina adduunya aakhirada iyadana anfacaysa جزاك الله خير دكتور aniga codsi baan sameynaya insha allahu tacaala ilaahay idin barakeeyo walaalaha waxay bilaabeen si ay qof walaalkaayo muslim oo soomaaliya ay wax ugu taraan ay gargaaraan oo nolosha ay ku caawiyaan kii dhintayna ay u geeyaan meel si loo aaso oo maaragtay loo duugo kii noolaana noloshiisii loola dadaalo ayay aamin ambulance ay sameeyeen shaqo lagaa rabay adiga ayay qabteen waxaan rabaa inaan u yeedho 1,000 qof insha allahu tacaala 1,000 qof keliya waxaa laga yaabaa 10,000 inay daawato cajiladan 1,000 qof keliya hadduu alla yidhaahdo yacni hadday ii suurtoobi lahayd 100,000 oo qof waan dhihi lahaa laakiin ma raba inaan saas dhaho 1,000 qof دكتورك وحو قبصدي $0.5 hadday walaalaha caalamka joogaan oo dhan ay soo diraan dabcan aamin kaliya ma ahe dalka oo dhan qaranka oo dhan baa maaragtay wax loo tari lahaa meelo badan oo wax loo u baahan in wax loo taro oo walaalaha qurbaha jooga in wax looga taro ay u baahan yihiin way jirtaa waxaa ka mid ah oo aan rabaa in aan xuso runtii ciidanka qalabka sida qaranka ciidanka qaranku waxay u baahan yihiin in la taakuleeyo laftigooda ha hilmaamina marka ilaahay khayran siiyo 1,000 qof waxaan ka codsanayaa in ay 2 sano ay isku dayaan in ay $10 دكتور account ma jira account ku qoran isla meesha ku qoran whatsapp ma wuxuu ku qoran web page ku qoran qofku facebook ma ku qoran ambulance.com markuu furo wuxuu arkayaa account donation ku qoran donation click ku siinaa waxa soo baxaysa meesha uu ku shubka صح way ilaahay khayr idin siiyo waa idinka tuugaynaa waa idinka baryaynaa waa idinku ducaynaynaa ilaahay idin barakeeyo risqiina $5 $10 waxba ka goynayso labada mid aad doonto adigu qaado insha Allah taala waxaan aad idinka codsanayaa $10 oo 2 sano aad siiso aamin ambulance waxaan rajaynayaa in ay wax weyn ay u tari doonto 10kaaga marka 1,000 qof ee kala lagu daro intaasoo 10 in dhakhaatiirtu dirawaladu maamulku inay heli doonaan wax ay wax ku qabtaan waxaan idin leeyahay jazakumullahu khayran xadiis aayadii qur-aanka waa kaynoo akhriyay dictor waman yuqridu allaha qardan xasanan fayudaacifahu lahu adcaafan kathiira ma raba aayado badan iyo axaadiis badan inaan akhriyo waad wada taqaanin ilaahay khayr idin siiyo aad baan idinka mahadinayaa sida aad noola tafaacusheen eed noo daawateen eed ugu gudbiseen walaalaha kale waxaan halkan kusoo gabagabeynayaa kulankii caawa aan la yeeshay walaalkay doctor cabdiqaadir cabdiraxmaan oo mas-uul ka ah asaasahana ah aamin ambulance ilaahay barakeeyo inta ay ugu khidmaynayaan kharash la-aanta ee bilaashka ugu khidmaynayaan ilaahay ha ugu dambi dhaafo ha u barakeeyo cimrigooda camalkooda risiqooda inta aad soo taageerteenna ilaahay subxaana wa tacaala fi miisaani xasanaatikum allah idinka dhigaan idin leeyahay aad baan ugu faraxsanahay inaad daawataan ood aragtaan fadlan sii gudbi fariintan insha allahu tacaala doctor kelmadii u dambeysay maxaad dhihi lahayd walaalaha walaalahaas intaa u duceysa kalama duceynaya haye codsan ka badan mayno ducaan ku khatimayna haye inoo ducee marka ilaahay caruurta iyo risiqa ha idin baraka aamiin الدنيا آخره إليه خير حسنا نصيب آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تي في هنو لاتو كدعوة إن شاء الله تعالى لأن يرى أنه هوست قريي كواليتي أكاونتنتس يجعل الله بركاته إذن كان الله يدين بركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولكن أحمد جوهر from Happy Marriage Academy أو Happy Family Academy مقدشوا لو بايان absolutely جزاكم الله خير بارك الله فيك والله سنتين كان سو غارسيا يعني سو ما صح وي